بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa ama ka hadlaya inaan ka warbixiyo howlgal ay xali ka fuliyeen qaar ka mid ah cutubyo ka mid ah ciidamada Puntland magaalada Laascaanood dhexdeeda howlgalkaas wuxuu bilaabmay 2:45 daqiiqo wuxuuna soconayay ilaa 5tii subaxnimo ciidamada Puntland waxay weerareen oo ay qabteen 2 saldhig oo ku yaala magaalada Laascaanood iyagoo ka sii daayay maxaabiistii oo dhan wixii maxaabiis ku jirtay oo dad xaq darro ku xidhnaa oo ciidamada jeegaanta maleeshiyada jeegaantu ay xidheen ay ka sii daayeen oo u suurta gashay ilaahay mahadi waxaan rabaa shacabka gobolka Sool inaan u sheego inay xoreyntii bilaamatay gobolka Sool lagu xoreynayay xoreyntu kama bilaamaso tukaro kaliya Laascaanood bay ka bilaamaysaa Yuguuri bay ka bilaamaysaa Xudub bay ka bilaamaysaa Arcad ka bilaamaysaa Guubays bay ka bilaamaysaa Yeeli ka bilaamaysaa meel kasta oo gobolka Sool ka mid ah oo nimankaas ku sugan yihiin ama ka agdhow yihiin xoreyntu waa ka bilaamaysaa jeegaantana waxaan leeyahay haddii indha adayg iyo propaganda ay cidi dhul aysan lahayn ay ku joogi lahayd Ingiriis baa ku joogi lahaa way soognahay awoodiina waan ognahay gobolka Sool fariina uu ka baxay ciidamadiina taagta daran ee tukaraq jooga waxaan oran lahaa intaydinaan waayin oo baroortiina waa maqlina dhowr isbuuc ka hor Hargeysa iyo baroortii ka dhacay Burco aydana dib u barooran inaad ciidamadiina aad kala baxdaan oo aad iyagoo nabad qaba ceshataan waxba inaad cabataan iyo waad marba waxa weeyaan dawladda federaalka iyo Itoobiya iyo igad iyo aad ku wareegtaan iyo beesha caalamka waxba inay tarmayso dhulkan anaga iskala Itoobiyana male igadna male cidna kala hadli mayno ilaa aad ka baxasaana waxa weeyaan waa wadanaa in aanu waxa weeyaan waajibkeena idin marino dhulkeena inaad ku noqotaan ilaa aad labada gaatama dhaafasaan marka dadka shacabka Sool waxaan iyaguna markale ugu baaqayaa sidaad hadda ugu taagantiin xoreynta inaad waxa weeyaan si laba jibaartaan gobolka Sool waan ognahay iyo magaalada Laascaanood ba 100% dadku waxay diyaar u yihiin maamulkooda Puntland inay la shaqeeyaan waa diyaarsan yihiin shacab iyo waxa weeyaan wax garad iyo aqoon-yahanba marka inaynu u midowno sidii aynu iskaga saari lahayn maleeshiyada taagta daran ee gobolka joogtay muddo 12 sano ee gobolka ka reebtay goboladii kale Soomaaliyeed iyo asaagiiba ka reebtay waxa weeyaan ay ku laayeen hal door badan dad baata badan ku xidhxidheen ummad badan ku barakiciyeen maata badan laayeen waxaas xilligii dulqaadka waa naga dhamaaday inaanu dib ugu sii dulqaadano duulinimada aynu ku sii jirnaa waxaanu aqbali karno maaha insha Allah maalmaha soo socdana isbedel khayr qaba baan rajaynaynaa waan salaamayaad badbaasatay meesha horta Laascaanood waxaan ka warhaynaa boolis yar oo tiro yar baa jira markii ciidamada Puntland meesha galeen weerareen ba iska yaaceen ciidamaduna waxay u tageen dadkii maxaabiista ahaa bay ugu tageen kadibna qafiladii iyo waxa ku xidheen bay ka jabiyeen waa ka soo daayeen marka saas ay runtu dhacday jawiga wallahi aad buu ka casay yahay magaalada waxa weeyaan dadku waxa weeyaan hadda waxa la sheegay in mudaharaad ka socdaan in dadku hadlayaan oo shucuubtooda muujinayaan iyagoo calaamada Soomaaliya iyo calanka Puntland wata marka dadku waa ka casay yihiin 100%